السلام الله عليكم ورحمة وبركاته كل وناكسن ميل الباد جوكتان هلكن ودنيا 24 كسر هذا برامج كان oo aan ku eegi doono maqaal uu ka qoray taliyihii hore hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo 2 sano jirsatay iyo waliba xaaladaha kala duwan ee xilligan ay dawladdu ku jirto isagoo isbarbardhig ku sameeyay dawladihii ku horay maqaalkan uu Fahad Yaasiin qoray waxa uu ciwaan uga dhigay dhaxalkii laga helay doorashadii 15 May 2022 ka dhacday Soomaaliya waa ciwaanka sheekadan uu soo qaatay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir kadib madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu la wareegay dal hal dastuur leh 2 sano kadib dalku waxa uu leeyahay 2 dastuur ayuu leeyahay Fahad Yaasiin Puntland waxay haysataa kii sharciga ahaa ee heshiiska lagu wada ahaa 2012 sida uu hadalka u dhigayo dawladda federaalku waxay leedahay dastuur cusub oo madaxweynuhu saxiixay oo lagu muransan yahay 2024 Somaliland iyadana keedii bay haysataa oo wada hadaladii god dheer bay kasi hoobanaya ayuu yiri madaxweyne Xasan waxa uu dalka ka abuuray qalalaasad dastuur iyo khilaaf ay Soomaalidu ka soo gudubtay 2012 waxa uu dalka dib ugu celinayaa marxaladii wada hadaladii dastuurka ee shirki Garawan iyo 2 ayuu taariikhda dalka laga soo bilaabo 1960 ilaa 2024 Xasan Sheekh waa madaxweynihii ugu horeeyay ee si dimuqraadi ah loo doortay ee ka guuray dastuurkii lagu dhaariyay ugana wareegay dastuur aysan ummadu heshiis ku ahayn waxa uuna u dhaqmayaa sidii madaxweyne dalka inqilaab ku qabsaday oo kale ayuu yiri Fahad Yaasiin 2 sano kadib dhowr arrimood oo aan ka digay waraysigii ugu horeeyay ee aan bixiyay ayaan doonayaa in aan dib wax ugu iftiimiyo oo bulshada Soomaaliyeed la wadaago madaxweyne Farmaajo waxa uu dhaxlay 2017 ciidan qaran oo aan 9 bilood wax xuquuq ah helin ciidan aan lahayn diiwaan casri ah iyo hanaan dabagal sanadkii u horeeyay madaxweyne Farmaajo waxa uu dhaxeeyay madaxtooyada iyo xarunta wasaaradda gaashaandhigga ugu dambeynna waxa uu go'aansaday jidka dhismaha ciidan qaran oo leh xuquuq dhammaystiran ayuu yiri madaxweyne ayuu yiri Fahad Yaasiin Xaaji Daahir taliyihii hore hay'adda nabad sugidda xukuumaddii ra'iisul wasaare Khayre waxay ku guuleysatay diiwaan gelin iyo dib u habayn waxayna saxday xuquuqdii ciidanka uu lahaa nolol ahaan tababar ahaan iyo agab ahaan intaba madaxweyne Xasan waxa uu 15 May 2022 la wareegay ciidan cusub oo aan ka yarayn 30,000 oo askari oo agab ahaan caafimaad ahaan anfac ahaan iyo niyad ahaanba aad loo dhisay loona tayeeyay guushaas waxa saldhig u ahayd in dawladdu fahamtay caqabada qarsoon ee hortaagan dhismaha ciidan qaran waana dawladda Imaaraadka Carabta sidaas darteed waxa la soo xiray albaabkii uu sharku ka soo galayay waxaana la laalay heshiiskii iskaashiga amniga ee dawladdii hore ee Xasan Sheekh la saxeexatay dawladda UAE ama Imaaraadka Carabta maalintaasi ayay bilaabatay buu yiri dhismaha ciidan leh haybad qaran 2 sano kadib ciidankii lagu soo tababaray Eritrea si kas ah oo ku talagal ah baa loo kala diray oo xitaa in ay xeryahooda ku soo laabtaan waa loo diiday sidaasi kolkii loo kala daadiyay waxa ay ku kala biireen ciidamada gobolada dalka sida Somaliland Puntland iyo meelo kale qaar baa u qaxay dalalka dariska iyagoo u dul qaadan waayay dayaca iyo ay la kowsadeen ee dawladoodii ay kala kulmeen ciidankii gorgor iyo haramcad sida loo hagaardaameeyay dibaddana loogu dhigay ama dibindaabyada loogu dhigay dabinadana loogu shirqoolay misana saraakiishoodii loo shirqoolay ma doonaya inaan halkan uga warramo madaxweyne Xasan markuu xukunka ku soo laabtay waxa uu dib isugu furay albaabkii sharka waxa uu mar kaleeto galkii amniga gacanta u geliyay Imaaraadka
oo uu u saxiixay heshiis cusub oo kii hore ka sii awood badan. sidii caadadooda ahayd shartoodii bay maleegeen 2 sano kadibna way ka miro dhaliyeen shirqooladoodii, ayuu yidhi Fahad Yaasiin. Imaaraadku marnaba ma ogola in Soomaaliya ay yeelato ciidan qaran. waxa ay dhistaan ciidan u gaar ah oo iyaga keliya daacad u ah, ciidamada kalena way kala daadiyaan. xitaa Puntland uma ogolo in ay yeelato ciidan aan ahayn kuwa BMPF waa PMPF-ta ee ay iyagu dhisteen. tan iyo waagii uu madaxweyne Faroole heshiiska amniga la galay waa qodax ku taagan horumarka amni ee dalal badan oo Carbeed oo ay Yemen, Suudaan iyo Liibiya ay ka mid yihiin. waxaa qormadan qoray Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, taliyihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka, marna ahaa agaasimaha madaxtooyada. arrintan ayaa waxa ay muujinaysaa ama uu kaga hadlayay dowladda federaalka ee Soomaaliya 2 sano guuradii ka soo wareegtay markii Xasan Sheekh Maxamuud uu xilka qabtay. arrintaas oo dowladdu ay u aragto inay shaqooyin waaweyn qabatay, ayna jiraan dad ka aragti bedelan Fahad Yaasiin. dadka qaarkood ayaa qaba dowladdu inay isbedel weyn ka samaysay dhinaca amniga oo ay dagaal xoog leh ku qaaday Al-Shabaab, taasina ay guul weyn ahayd. waxaa jira dad kaleeto oo qaba in dowladdu ay siyaasadda arrimaha dibadda guulo waaweyn ka soo hoyisay oo ay ku biirtay bulshada Bariga Afrika oo wadamo dhowr ay ku jiraan. sidoo kaleetana ay dowladdu deen cafintii ku guuleysatay, hubkii iyadana cunaqabatayntii hubka laga qaaday dowladda Soomaaliya, tallaabooyin waaweyn oo kaleeto oo muhiimana ay qaaday. aragtidaas dad ayaa qaba. aragtidan Fahad Yaasiin Xaaji Daahirra dad kaleeto oo la qaba oo Soomaaliyeed oo aad u badan oo qaarkood mucaarad yihiin ayaa iyaguna jira. isku soo wada duuduube maqaalka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir si weyn ayuu ugu duray oo 1960kii ilaa hadda habdhaqanka uu ku dhaqmay Xasan Sheekh Maxamuud in aysan jirin cid ku dhaqantay oo lamida ayuu soo hadal qaaday ama uu sheeg. sababtuna waxay tahay waxa uu yiri dastuur iyo nidaam dimuqraadi ayaa lagu doortay. waxa uu geliyay miiska hoostiisa, kadibna waxa uu la soo baxay dastuur cusub oo isagu uu saxiixday oo isagu uu leeyahay, kaasi oo lagu kala qaybsan yahay. waana midda keentay in Puntland ay xitaa tiraahdo dowlad federaal la yiraahdo oo Soomaali wada leedahay ma jirto. Xasan Sheekh Maxamuudna madaxweyne Soomaaliyeed iyo ra'iisul wasaarihiisa midna uma aqoonsanin ee si allaale sida ay doonaan ha yeelaan. marka halkaas marka aad fiiriso ama xaaladaas aad qiimayso, waxa aad moodaa in waxyaabo badan ay weli ka khaldan yihiin nidaamka dowladnimada Soomaaliyeed. laakiin waxa maragma doontaa inuu isbedel badani dhacay. isbedelkaas ninba si ha u arko. markastana cid meel joogta ay khaladaadna uu ka dhacaya, horumarna way samaynaysaa. dowladda Xasan Sheekh Maxamuud tan iyo markii la doortay dhaliilo waaweyn ayay kala kulmaysay mucaaradka iyo muxaafidka qaarkoodba oo iyagu aragtiyo kala duwan qabay. haddana xaaladdu weli waa ay culus tahay. intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa maqaalkaasi uu qoray Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ee uu sida weyn ugu duray uguna dhaliilay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud 2 sano kadib dowladdiisa iyo waxyaabaha iyo tallaabooyinka ay qaadeen. qodobada qaarkood ee arrinta ciidamadu ka mid tahay, haddii ay si dhab ah oo sidan uu u sheegay Fahad Yaasiin u jirto, waa ceeb weyn iyo sumcad dil weyn oo ummadda Soomaaliyeed haysata guud ahaan. dowladda Xasan Sheekh Maxamuudna ay mas'uul ka noqonayso oo iyada lagula xisaabtami doono. arrinta Imaaraadka Carabtu maalmihii la soo dhaafay waxaa soo baxayay in dowladdu ay ka gudubtay oo Imaaraadka iyagu ay kala tageen, kala baxeen, kala durkeen, kala fogaadeen, ayna Imaaraadku ka guurayaan magaalada Muqdisho oo xiriirka u jarayaan. dowladda Xasan Sheekh Maxamuudna ay raadinayso wadan Carbeed oo ay ku xirato oo ka bedelan Imaaraadka. waxaana jira warar sheegaya in dowladda Qatar ay u guuri doonaan oo dhinacaas ay aadi doonaan. waxaana maalintii shalayta ahayd safiirka Imaaraadka ee u fadhiyaan dhahda dowladda Qatar ee Muqdisho waxa uu kulan la yeeshay martiqaad special ama heer caalami oo sareeyana
lagu maamusay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya halkaana wasiirkeeda arrimaha dibadda uu kulan kula yeeshay ayna ka wada hadleen arrimo labada dal danahooda muhiim u ahaa waxa jirto oo kaleeto in Imaaraadku uu Xasan Sheekh Maxamuud sida wararku sheegayaan uu hadda isaga laftiisu ka aaminsan yahay sida Fahad oo kala sharwadayaal inay yihiin aysan ka shaqaynaynin wanaagga ummadda Soomaaliyeed waa mahadsantiin